horta hore ma jiro adduunyada ilaahay qof jecel inuu naafo yahay ama naafo noqdo oo jiro ma jiro midkii ku dhashay midkii noqday ee ilaahay u gartay mid walba ha ahaado laakiin markaad sidii cawaankii u hadasho raaligelin kastoo dhiibto waxba kuuma tareen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub maanta halkan waxaan idinkaga hayaa arrin aad iyo aad u xun marka hore muuqaalka dhammaystiro kadibna ra'yigaaga nagula wadaa komediga mahadsanid oo komedi ka soo bixi waa muhiim jiddan muhiim inaad ka soo bixido komedi like-na saar please muuqaalka subscribe youtube-ka haddii aad ku cusub tahay gabadha ka furo si kuu soo gaaraan muuqaaladiisa mahadsanid marka labaad aan isku soo laabano horta bal muuqaalkan yarkaa ila daawo nin caraysan oo laga badiyey ila daawo أسد حاجة لو ما لعن أسد حاجة لويس وقبا لكن لا ينكم رايا وبحربا أو والله أو بالله أو طلع وبحربا ها شلي أنا تاجري هذا هي أسد حاجة هلاقعه مركي مارتي مالتي لقى جبسناي فيديو ووري أنا واقف دبي شكوين كل صوت ساي وانا قانا شكوين كل صوت سايو أنا وانا قانا أسد حاجة واستاجنيو ها wax aad u xun haddii ilaahay adiga oo caafimaad ku siiyey lagu waaweyn ku siiyey aad ku soco kartid aadan maanta meel u fadhin qof xaasidkan oo kale ah waa alxamdulilah asad xaajiyow ilaahay waa u gartay habeenka uu xab iyo biyo ahayo caloosha hooyiisa ku jiray ayaa loo qoray inuu naafo noqon doono inay xabada ku dhici doonaan in balaayo ilaahay u ku sababi doono laakiin asaga marna ma qorsheysan mana jeclaysan inuu noqdo naafo ama meel ma dhiganin laakiin waxa adduunka ugu daran qof caafimaadka ilaahay siiyey inuu mataqaanaa qof walaalkiisa ah oo macnaha asagoo ku xumeynayo oo hadal beena ka sheego ilaahay ayaa wax walba bixiya big bro way ka halaado midaan haddana raaligelin uu soo dhiibay laakiin qeyd wax ay gasha lama arko raaligelintiisa ha iska haysta asaga waayo asad wixii ku dhacay way ku dhaceen uma soo laabanayeen hadalkana wuxuu ku jiraa afkaaga urkaa ku jiro ayaa umaana galaa mar hadduu kaa soo baxo kalsoonidaas way dhimatay xataa hadduu si walba iskaga kaa cafiyo kalsoonidii hore way dhimatay iska ilow taas waayo waa ku digatay waa ku baashaashay macnaha maskiinkan ilaahay u gartay inuu kursiga ku fadhiisto ilaahaygaas uu joogo adigana wuu kaa dhigi karaa horta big bro haddii aad dad tahay aaw kooxdaaday haddii aad adig qof wanaagsan tahay aaw dadkii saaxiibada ahaa aawa kaafi aawa dhalinyaradii aaway dadkii shalay kusoo caanbixiyey adigoo af soomaali aqoonin oo sajuu'e dadkii banaanka ku keenay aaway maanta intay joogaan xagee aadayn dadkaas waxaa ku cadaynayda maanta waxaa caddaysa inaad tahay qof qalbiga ka foolxun oo uurka ka jiran maadaama aad asad xaajiyow oon guri kaaga jirin isku magaalo aad joogin isku deegaan aad ahayn isku wax aadan ahayn aaba been ka sheegtay asad xaajiyow maalmahan waa arkayay in dad badan ay dhibaateynayaan in dad badan oo soomaaliyeed ay xataa si qabiila ku weerarayaan sharif axmed odagoo la dhayaxatay u arkaya maantay wuxuu iska sheegaya iskana calinaya qofka markuu intuu ceerta ka badato kibirka ka bato oo ceer kaliya qaato oo dadka iskaga macmacleeyahay waa iska caadi waa iska okay laakiin waxaan leeyahay waxay yihiin reer xaajiyow dad walaalo ah oo isjecel oo isku xiran arrimaheena asad xaajiyow cabdullaahi xaajiyow dhalinyarada joogtaan waa dad isku xiran waa dad 100% haddaysan wanaagsanayn intee youtuber ayaa inta yurub ka baxday ugu tagta meeshaas ana ma ka hadlayo qof isdagaalayn 2 iyo 1 ma ka hadlayo laakiin waxaan ka hadlaa intee youtuber ayaa ugu tagtay fadhigooda oo ku soo dhaweeday kuligooda ay ku soo dhaweynayeen baabajay waxaan arkaya aad iyo aad u calool xumaaday oo u shitooray oo ka xumaa baabajay inaad big bro oo kale u jawaabto aan ma aaminsanaynba waayo waa nin ku raaxaysanaya
qofkan siduu ilaahay ka dhigay adiga ma dooran boqolaalka Soomaali oo naafada noqotay ma dooranin asal xaajo ma dooran naafo inuu noqdo ilaahay waa u gartay alxamdulillah wayna ku qanacsan yihiin adiga big bro ilaahay wuu ka dhigi karaa waxaad ku kajamaydaa waa amuur ilaahay amuuraha ilaahay lama galo laayno sugnaa dibadu ku aadi rabaa war wuxuu rabaa ku aado aad maxaa ka galaa ma ka dhigin ka naafada mid kale maantay qaxooti buu joogaa oo ka diiwaan gashanaa karaa haddii ilaahay uga soo qaado bixi karaa big bro adigoo saacadda maanta adoo Kenya ku dhashay baasaboorkii haysta haddii uu dhashay qaxooti Soomaaliya la qaadaa waa tuur lahayd oo ogaani dhacasta u turtaad qaxootiga ord ku aadi lahayd aan ku dhahay waay waxa ognahay in dad badan oo familkaaga iska diiwaan galiyeen xariyaha qaxootiga dhadhaab si ay u dhoofaan process ay ko cudurro qabin ay been sheegi jireen ee dhihi jireen mataqaanaa markii la weydiiyo laado Muqdisho iyo Afgooy intee u dhaxeeyo wax dhihi jireen doona loo kala raacay diyaarad sababta waligood meena arkay mugtahay marka maanta maaha inaa ku dhahdo process ku sugaa iyo oo ku dhoofaa iyo asxaajo ku baxaa iyo naafnimada iyo naafo maaha iyo ruustul ku fadhiya dadku u socdaan cawaamahan waa dhaqaatiir waa dad wax yaqaana waa dadka u sheegay Soomaalida maaha cawaana mataqaana dad wax bartay oo wax akhristay oo wax ka badiyay waay marka adii sidee wax u wadaa warkaaga isoo qabsi waxaa leeyahay asxaajo waa loo gafay halaga raaligalay Soomaaliyeey halaga dhaqo YouTube-kiisa subscribe-ka loo saaro ha loo sheegareeyo waa nin walaal ah waa nin naafo ah waa nin dad jecel waa nin qalbi wanaagsan hal maalin qof oo reaction ku soo caayxta ma jiro waa waxyaabaha aan kala yaabay asxaajo program keensada oo dhaqan kala maalin mid secretary asxaajo oo intuu soo qaatay programkiisa reaction ka bixinayo oo dad jaafiinayay YouTube-ka dhan wala helaa hatta ma arrimaha wala helaa asoo qofka hadla si uu hadla wala helaa laakiin asxaajo mar walba program ayuu diyaarsadaa ama dhalinyarada la sameeyaan ama asaga magaalada ka sameeysto programkiisa soo sameystaa kaas oo qarxa marka waxaan u jeedaa inaad ka xuntihiin horumarkiisa ka xuntihiin waxaan leeyahay ninkaas nin dhalinyaro waay ama siiya farax ka qaada soona iskana dhaafo oo subscribe ku saar YouTube-kiisa waa maasantii Soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh